بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وانا سنداو ضيال كنا سودو هذا برنامجك عدك جالية أوهايو. برنامج كان وقصو قادم دونه وقضى بكرة دون كنا سو عسومي دونه هدي لحيدمو أقوي هنو يوحقر الصوماليات وككليمانية جالية صوماليات مقاعدة كولومبوس. برنامج كان وعدك داون وطعم تلفزيون عالمي جاء بنتلان حرمس مقاعدة كولومبوس أوهايو. waxay daadiin doona anigoo soo faaruna hadii la haydmo maanta waxaan ku soo qaadan doonaa shirka wadatashiga Puntland ee ka dhacaya magaalada Gaalkacyo ee dawladda Puntland ay ilaamisay kooda bisha Juun aragtida ay ka qabaan qurbo joogta reer Puntland ee magaalada Columbus Ohio waxaana marti inoogu ah injineer Cabdulqaadir Maajo Cabdi Cismaan Ise عبدو لو يقانو يا عبد الفارح ديرشي oo kamid ah qurbo joogta reer Puntland ee magaalada Columbus Ohio ku soo dhawaada barnaamijka codka jaaliyada Bismillahir Rahmanir Rahim kuntu wana sadaawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka codka jaaliyada waad ka daawanaysaa telefishinka caalamiga ee Puntland TV halka uu toos idinkaga imaanayna waa studio-ga Dinjir ee magaalada Columbus gobolka Ohio dalkaasi Mareykanka waxaana aan maanta ku bilaabaynaa hadii la hayno aqoonyahamo kasoo jeeda iyo waxgarad kasoo jeeda gobolada Puntland oo aan anagu soo qaadan doono shirkii wadatashiga ee dhawaan lagu ilaamiyay magaalada Gaalkacyo kooda Juun hadii la hayno shirkaas oo leeyahay shirka wadatashiga Puntland ay ilaamisay dawladda Puntland marka ku soo dhawaada barnaamijka codka jaaliyada waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena sida aan horeba u sheegnay aragtida aad ka qabtaan shirka ka dhici doona magaalada Gaalkacyo su'aasha ugu horeysana waxa weeye ma yahay shirkani mid xilligan ku haboon dadka reer Puntland loo qabto dadka reer Puntland ay u baahan yihiin wallahi shirkan xilligan horta oo ku haboon yahay inkastoo muddo dheer la sugayay inuu shirkan dhaco dadka Puntland ay waxyaalay maaragtay ay kala tabanayaan loogu baahan yahay in wax xalliyo marka shirku waqtigiisu waa fiican yahay wax walba oo maaragtay la soo turxan bixiyay oo laga soo shaqeeyay kullayba natiijooyin fiican baa laga gaari doonaa waana ku hambalyeynaa maaragtay dawladda inay maaragtay xilligan ay soo abaabushay oo wax maaragtay fulintii la joogo guddoomiyahana uu maaragtay ilaamiyay bisha Juun koodeeda inuu qabanayo waxaan salaamayaa dadka xafladan noo sameeyey iyo jaaliyada dadka aan la hadlayno reer Puntland oo anagu aan ka tirsannahay waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga magacayga waxaa la dhahaa Cabdulfaax Dirshe waxaana ka tirsanahay jaaliyada Puntland joogta gobolka Ohio waxaan ku salaamayaa shirkaas asaga aad iyo aad baa arrintaa loo sugayay Puntland waxay jirtaa xilli dheer oo 17 sannadood ah ummad maamul haysata oo meel degan oo dawladdeedii dhexe ay burburdhay oo iyadu kaligeed wax iska tilmaanay waxa ku heshiisay bay ahayd dabcan way ka khaldami karaan wax haddii dadku shiraanna waa aan wada hadalno waana heshiino Puntland xataa markii ay doorashooyinka galayeen shuruudaha ugu horeeyo ragga doorashada raba ay ku gorgortamayeen waxay ahaayeen shacabka Puntland in la isugu yeero marwan ay saarkaan oo wixii ka khaldan ay saxaan marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa inuu macquul yahay waqtigiisina hadda la joogo hadda ka hor aan ka jeclayn inuu ka soo hormaray ahay laakiin wax walba xilligii Ilaahay ugu talagalay bay fulayaan dadku siday wax u rabaan waxuma dhacaan Ilaahay go'aankiisa iyo wax walba waxay ku socdaan taariikhdii lama dhaafaan ka ahayd oo Ilaahay weyn uu adoomadiisa uu ku aadiyay su'aasha labaad oo aan weydiinayo waxa weeye shirka waxaa loo ilaamiyay in laga wada hadli doono hadii la hayno saddex qodob oo kala ah in asaaskii markuu in asaaskii Puntland wixii lagu heshiiyay 1998 in dib
loo fiiriyo wixii ka khaldamaana la saxo iyo waxa xaaladda hadda xaaladda ay ku sugayaan hadda reer puntland iyo mustaqbalka hiisiga dambe waxa ay puntland ay haysan doonto ama qorshaheeda mustaqbal ee puntland kaas waa qodobka kale beeraha wada degan puntland oo had iyo jeer khilaafaadii maxaa lahay ka dhex dhacaan in la dhameeyo khilaafaadka had iyo jeer khayraadka ka dhex bilowda iyo qodobka saddexaad oo ahaa asxaabta badan iyo dimuqraadiyad inay shacabka reer puntland ama dowladda puntland ay fulin karto ama laga wada hadli karo arrinta dimuqraadiyadda ama asxaabta badan saddexdaa qodobo kale oo aad u malaynaysaan ama qiyaasi kartaan in laga tegay ma idiin muuqataa sidee soo arteen saddexdan qodob oo ay maxaa laga wada hadlay shirka kalkacayo بسم الله الرحمن الرحيم مقعي أنا عبد العثمان حنكم مقعد عليها عبدو قضب بداس وقضب روتي مهم واحد صوتو حواي أساسكي بونتلان كوني السجال بقولي السجاشن يسديتي وحي خلدمي إن لقى وضع هذلو للصحة حلو الراديو وأرين آديات مهم واحد أرين تخيرات ومثلا وحيالها ومدو بدنا بنادم في سقوط صدري كم بتاعي أيضا ولو باهية إن خيرات كاسي وناكسن وهفن لو قبصده أرنتا حزبية دا إن dadka loo furo xisbiyada maadaama dowladii ka horeysay ay bilowday ay socon weysay in dowladan ay ku dadaasho inta waqti badan ay haysataan ay horumariso in masalan xisbiyada la furo oo dadku ay xisbiye helaan oo ay helaan magaciisi inay tartamaan aad iyo aad wax loogu baahan yahay waxaa kaloo qabaa in matalan puntland ay hadeertan bilowdo inay cafiso ama ay la xaajooto dadka wixii mucaarada oo matalan ama banaanka taagan ama si kale u fikiraya ama ka tirsan magaciisii ururadan diiniga oo banaanka taagan oo wixii la khalday kuwa kama hadlayo kuwa matalan mintidka oo ay matalan dagaalamaya laakiin waxaa ku dhex jira dad fara badan oo lasoo celin karo waxaa jira matalan dad puntland wax ka dhistay oo hadda matalan maamulada deriska samaystay ayagan in lala xaajoodo oo lasoo dhaweeyo oo la raadiyo hadday yihiin isimo hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin waxgarad kale hadday yihiin haween hadday yihiin dhalinyaro waa wax aad iyo anaan ku talin lahaa in matalan qodobkaas lagu daro matalan in dadka lasoo jiito ay ka qayb qaataan magaciisii xaajoodkan dib laisugu abaabulay puntland waxay umahadsan tahay saddexdan oo maaragtay qodob oo maaragtay shirka uu ku salaysan yahay runtii waa qodobada asaasiga oo maaragtay laga maarmaanka puntland waa dhul ballaaran oo dad badan oo kala duwan ay degan yihiin lasman dadka markii maaragtay ay ama bay'adoodu kala duwan tahay ama maaragtay danahoodu kala duwan yahay ama si uunba ay u kala duwan yihiin wax un baa laysaga hor imaanaya laysaga hor imaaday macnaheedu maahan inaan la heshiin karin qof kastaba dan buu leeyahay dantiisii haddii loo fulin karana in loo fuliyo haddii maaragtay ay dantii ay dadka kaleto wax u dhimaysana laga qanciyo isaga maaragtay marka anigu arrinta siyaasadda iyo arrinta khayraadka iyo arrinta dimuqraadiyiinta runtii waa arrimo kulligood bas maaragtay asaas u maaragtay arrinta dadka isu imaanaya oo la puntland dad maaragtay qabaa'il badan ayaa wada dhistay qabaa'ilkiina kolleyba heer waxaa la gaari doonaa qabaa'ilka in laga gudbo oo loo gudbo maaragtay dowladnimo rasmi ah middan kaleeto oo ah maaragtay in khayraadka sidii loo qaybsan lahaa lazman khayraadka waddanka ku jira waa khayraad badan oo maaragtay waddanka markii horeto oo maaragtay intaan dowladdan maaragtay dagaalada intaysan dhicin waddanku waddan iska dayacan buu ahaa hase yeeshee wixii ka dambeeyey waxaa la ogaaday in beeruhu aad iyo aad u badan karaan oo dadku waxbay beertaan waxbay soo saar bay leeyihiin badii baa maaragtay wax laga soo saaraa macdan baa dhulka ku jirta khayraad badan baa jira xoolay leedahay marka dadku maaragtay inagu khayraad inagu aan gaar inoo ah iyo waxbada waxaa jiraya khayraad ummadda soomaalida aynu la wadaagno wixii maaragtay khayraad ummadda soomaalida aynu la wadaagno kolleyba rules waxaa sharciyo waxaa loo baahanya inay kasoo baxaan sidii wax loo qaybsanayo
si fiican loo hagaajiyo oo dadku maaragtay ay ku wada qancaan innaga iyo dowladda maaragtay dhexeba. midda kaleeto oo dimuqraadiyiinta dhibataan ku leeyahay daayito aan ku fikiraya aan ku dhahayay la joogi maayo weligeen qabiil inuu maaragtay inoo soo xilo ninka maaragtay xildhibaan inoo noqonaya ama inoo matalaya maaragtay dowladda maaragtay hawlaheeda. waxay imaanaysaa mar loo baahanayo ama dowladdanba hadeerba aan uga fadhinaa inay gaarsiiso dadka qof walbiba inuu codkiisa yeesho oo maaragtay si dimuqraadiya loo doorto. axsaab baa loo baahanayaa, dadku inay maaragtay si nabadgelyo ah wax usoo doortaan baa loo baahanayaa, ammaankii in la sugaa loo baahanaya. marka aniga saddexdaas qodob oo maaragtay lagu soo saleeyey iyo qodobo kaleeto oo lagu dari karoba aniga waxaan qabaa in lagu taageero maaragtay shirka. okay, aad baad maastahay. qodobka kale oo maxaadaye aan idin weydiinaya waxaa kamid ah midnimada Puntland, qaabka loo saldhigi karayo. waxaa jira sidee u aragtaan waxaa jira sida maamulkan imika maxaadaye Puntland oo kale dad ka tirsanaa sida Khaatumo oo kale inay iyagu yidhahdeen waxaanu nahay maamul baanu nahay. gobolladii lagu heshiiyey 8 gobol ee Puntland oo imika eegooyinkooda ay tegayaan shirka gaalkacyo ee dowladda Puntland qabatay deegaanada ka imaanayaan. dadka qaarna way mucaaradeen waxay maamul baa samaysanaa. dadkan sidee inay la muuqataa ka mid ahaa Puntland oo imika yiri maamul baanu leenahay, sida loo dhaqmayo, ma in lala hadlo, ma in erka loo diro, ma in shirka loo aragti sidaa baad ka qabtaan? bismillahi raxmaani raxiim. anigaan kusoo boodo waxaa waaye maamulka hadda masalan ka dhismay Khaatumo oo Salaxley lagu dhisay xaqiiqdii waxaa waaye wuxuu u muuqdaa meel hadda uu saldhig ku leeyahay oo jiritaan ku leeyahay ma jiro. laakiin haddii dadka ay masalan markii hore qeyb ka ahayeen waaba ka ahayeen maamulka Puntland haddana ay ku leeyihiin xubno, aniga waxaan qabaa qeybta maqan in loo yeero, la wada hadlo, laisqanciyo, waxyaalaha ay tabanayaan laiska qanciyo, la tixgeliyo, aada loo tixgeliyo. sababtu waxaa waaye dadka ma kala maarmo, tambirina ma kala go'i karaan xaqiiqdii. sababtu waxaa waaye fikradooda markaa fiirisid midnimada Soomaaliya waa xagga waa okay, oo masalan dad hadda dhahaya masalan inagu inaan gooni u istaagno ama Somaliland ku biirno ama magaciisi ma aha. waxa ay kulley waxa ay u go-een ama u samaysteen waa tabasho jirta oo ay ka tabanayaan maamuladii hore Puntland ama kan hadda jira. haddii loo yeero oo la wada hadlo oo si saraaxa loo wada hadlo, ani waxaan dhihi lahaa waxyaalo fara badan ay iska bedeli kara oo masalan kusoo noqon karaan. masalan Puntland ay mid noqon karaan oo masalan waa Puntland way ka badan tahay. waa marka hadda Soomaaliya loo fiiriyo, marka loo qeybiyo Soomaaliya 3 meelood qeyb ay u dhigantaa Puntland xagga baaxadda dhulka runtii. markii horena waxay ka mid ahaayeen asaasayaasha. waxaan qabaa in haddii loo soo dhaweeyey inay masalan wax iska bedelayso aragtida dadweynahan laga soo jeedan karo. ma dhamaysata. ana 3 qodob aad ka hadashay, qodobka siyaasadda iyo qodobka nabadgelyada, sida ay beelaha khayraadka isugu haystaan, iyo mustaqbalka waxa Puntland ay noqonayso, iyo maamulkii Puntland oo laba noqday oo magacyo la kala baxay. 4taas qodobba waa ka hadlayaa. horta Puntland ummad baa samaysatay ayadoon Soomaali waxba lahayn, oo Soomaaliya ay maaragtay United Nationkii iyo adduunkii ka dareeray, oo dhibaato iyo cirid la tuuran yahay, oo halbowlayaashu go-an yihiin, oo meel lagu joojiyo meel la isugu imaado aysan jirin. Puntland marjac ay dadka Puntland u dhashay ay inta tageen ay doorteen oo maskaxdooda ay ka heleen dadkooda iyo dantoodaba inay maamul ayaga haga. maamulkuna dadka badbaado u yahay, qof kasta maamulka wuxuu u yahay mustaqbalka u fiirsado. haddaan ummaddu nabad haysana nacfi ma haysato. wixii samaystay Puntland oo magacaas Puntland iyo halkaas heekalkaas ku jiray Puntland weeye. waxaana qabaa
arrinta haddii lagu guulaysto waxaan qabaa inaan laga guurin oo qofku wuxuu ka bedeshaa wuxuu eedo laakiin ibni aadanku haddii ay wax isku darsadaan ama dowlad xoog badan oo dadka systemkeeda hogaamisa aysan jirin waxaa imaanaysaa khaladaad badan baa imaanayo dadka waxaa ka lumahaya libidkii waxaa ka lumahaya maaragtay ama dhaqaale la-aan ha noqoto ama cadifad qabiil ha noqoto ama burburka iyo dhibaatadan wuxuu keenay oo dadka ku jira ummad iska burbudhay oo 30 sano ku jir dhow baan nahay waxaan qabaa Puntland dadkii samaystay waa muqadis inay midnimadooda ku yani ay ilaashadaan haddii ay u guurahayaan khaatumana inay ay magac bedelanayaan oo khaatumo ka dhigtaan inay khaatumo isugu guuraan hadday Puntlandtooda hore u daysanahayaan inay isu yimaadaan waxaan qabaa Puntland laba noqotay labada garab midna inaysan nacfi ugu badinayn intaa waxaan ku darayaa nimanka hogaanayaasha xuduudda Puntland waa muqadis eed baa idinka saaran Puntland inay xuduudeedii kala go'do shacabku waa idinka gar heli karaa haddii dad kale ay sheeganayaan waxaa imaan kardha in maaragtay turxaanu timaado in dulqaadku naga dhumo inaad marka dadka kale irdhoobo in burbur iyo maaragtay saxmaddu ay korodho nimankiina hogaamiyayaasha waxaan ku boorinayaa wadankii shuruucdiisa iyo constitutionka aad samaysateen wixii xadgudub ka hortaga hadday hadal tahay hadday dhaqaale tahay hadday difaac tahay iyo hadday xoog tahayba walaalkaa hadduu kufo waa inaad gacanta qabataa haddaad dhulka ka qaadi weyda inaadan rabin baa yuu kuu qaadanaya wuxuuna u geli karaa hadba meesha naftiisu u cayriso anigu waxaan leeyahay nimanka liidarada oo Puntland isu soo celiyo laba yay noqone ama waxaad ka dhigtaan khaatumo ama Puntland isugu soo noqdo wadanka anagu aan joogno waxaa ku nool 320 milyan baa ku nool 300 milyan iyo 20 kun baa ku nool waxaana loo keenayaa taxi baynaan nahay waxay garteen adduunka hormaray qofku inuusan meel bannaan aan wax laga helin ee qofku wax keeno hadduu beer jilaabo iyo hadduu beer falo iyo hadduu bad jilaabo iyo hadduu xoolo dhaqo iyo hadduu ciidan noqdo qofka ibni aadanka noloshiisu waa dheeman macdan wey gacmana wada jir bay wax ku gooyaan kala dakiina wuxuu keenayaa inaynu ku yaraato xorriyaddu inaynu ku yaraato dhaqaaluhu inaynu ku fududaado nin kastoo adinka dhibaato inu ku samaynayo inaad u nuglaataan oo inu kusoo durko anigu Soomaaliya oo dhan cadow ma arko laakiin dadkiina wax samaystayo wixii aad samaysateen meeshay ka dhumeen marjac inaad ku noqotaan baa laydinka rabaa aad maaragtay isa saxdaan oo isu soo noqotaan oo dadkiina iyo maaragtay waxaa la yidhi hadal hadduu daalana waa la daayaa reer hadduu daalana waa la dejiyaa arrinta Puntland waa daashay oo khaatumo iyo kala maraysa Somaliland iyo Puntland saddexda u kala taagan dhagahayaguna wax fiican ma maqlayaan indhahayaguna waxay ku qabowsadaan ma haysano mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leenahay nimankiina marjaca oo ah dadka hogaaminayo ummaddu meeshay ka bugto ka daaweeyo waxaad qaban kadhaana qabta aad aamusnaanta iyo jileecana hayni ka baxo saas markaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha isku duula ma ahan qofku wuxuu xaq u leeyahay hadduu qaato oo sheegto waa marxalad dadku isku qiimeeyo ma ahan anigu Soomaali in la islayso in dagaal la cusbeynayo iyo in dad hor la dhinto in la isku soo duula midna ku celcelin mayo waxaan jeclahay dadkan dad wada walaalo weeye laakiin waxaan doonayaa mas-uuliyaddiina iyo heekalkii aad dhisateen iyo dhulka xuduuddayni ahaa iyo shacabkii aad mas-uulkeeda qaadeen inaad meel isugu keentaan intaasaan arrintaasna u arkaa waxaan u arkaa arrinta khayraadka la isku qabsanayo Puntland anigu khayraad badan oo ka muuqdaba ma arko waa dhul guban oo dhibaato iyo cadow ka dhargay haddii geeda inii dhisan yihiin ama aad xoolo dhaqanaysaan qofku wuxuu qabto dadkao dhan bay dheef u tahay waxaan jeclahay inaad ku heshiisaan maslaxaddana aad nabad u bedeshaan xolaadana aad ka tagtaan dadooda dhashan oo isla nool baa tihiin markasta waxaa nagu soo dhacda dadooda dhashay baa waxay isku dileen Boosaaso iyo meesha Garowe dhexdooda arrintaa arrin fiican maaha taariikhdan ku fiican uma soo jireen community fiicana oo ummadda Soomaaliyeed indhaha ay ku hayaan oo ay leeyihiin waa nabad jecel yihiin oo ay oranayaan xadaari weeye
oo dadkan wax samaysan aad wax samayseen oo soomaalida federaalka u yaalla iyo puntland iyo mid kastaba aad hormood ka ahaydeen weeye shacabkiina inaad kala ceshan weydaan oo geeda hoosta isku laayaan oo waxaad marjaca iyo macnaha u lahaydeen ayna ka baadaanna taasna waxaynu ku noqonaysaa turxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba isa saxaan leeyahay beelahood dirirayaanan maqlin dayaca badan hayna ka baxo sidaad wax u wadaan wixii wanaagsan waynu ku ammaanaynaa xagga waxbarashada xagga beeraha xagga nabadgelyada xagga ciidanka xagga daras wanaagga intaasoo dhan waynu ku taageeraynaa waana wax lagu faano waxaan kaloo leeyahay maalin kasto 17 sano aad maraysaan in 60 soo doorato dadka oo nin walbaba la dhaho anigay dooro iyo anigay dooro oo odaga la eedeeyo reerka odaga u hoggaanka waxaa ka fiican one man one vote inaanu gudubno waqtigii hore la isku dayay hadduu naga gubtay cabdiwari waqtiga maanta ayuu gudbin asxaabta hala furo one vote la gaarsiiya ciidinimo waardiyeyso wadan nabada iyo dad fiican shacab baad haysataan arrintaasna waxaan jeclahay siday tahay inaad dadaalka u galisaan waqti inuusan ka baabayn intaasaan uga baxayaan aad baad mastahay su-aasheeda ugu dambaysa ee aan weydiinayo janaraal ahaan shirkan marka uu dhaco haddii lahay idmo qodobada laga soo saaro oo qodobaa kasoo bixi doona haday jeerna intaa waxa wada gaadho baa laga yaabaa in wax ka khaldamaan haddii qodobada shirkaa marka lagu heshiiyo laisku afkarto qodobada laga soo saaro haddii la fulin waayo dhinacyada ay qosayso ama beelaha ha ahaato ama guddiyada wax loo saaray ha ahaato ama maamulka laftiisa ha ahaato sidee u aragtaan haddii qodobadaas ay fuli waayaan oo shirkaasna waqtiga dhaqaalo badan la geliyay بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan rajaynaynaa horta shirka inuu hirgalo qodobada ka soo waxaana ay hirgalaan insha Allah waa rajadeena say tahay مثلا saasaan qabnaa haddii ay مثلا waxayna ku xiran tahay shirka natiijadiisa waxay ku xiran tahay sida ay uga soo qayb galaan 8 gobol Puntland ay ka kooban tahay dadka degan dadka ay talada ka go'an gaar ahaan dadka talada ay ka go'an sida uga soo qayb galaan haddii ay ka soo wada qayb galaan oo shirka la soo qayb galana shirka wuxuu u muuqanayaa shir loo dhan yahay oo مثلا natiijadiisana waa fiicnanaysaa sababta waxa waaye dadku hadday wada hadlaan badana waa isu dhawaanaya haddii marka inta la qabto ay hirgeli waayaan ama wixii lagu heshiiyey ay hirgeli waayaan dhinacay ka hirgeli waayeen ay hadba meeshaas dhibka meeshaas u ka muuqanaya haddii ay dhinaca dawladda ka hirgeli waayaan wixii lagu heshiiyey sababta culayska badi dawladda u fuulaya haddii ay ka hirgeli waayaan dawladda qaadaysa wixii khaladaha oo meeshaas iyo dhibka haddii ay ka hirgeli waayaan gobol specific gobolla qaarkoodana dhibku wuxuu imaanayaa gobolladaas qaarkood keliya in masalan la saaro wixii ay sababtii u fashilmay shirkaas waa mahadsantahay anigu waxaan arkaa arrinta qodobka asaga haddii waxay noo dhammaan waayaan dulqaad in loo yeesho ilaahay in loo noqdo marjac mar labaad iyo mar saddexaadba wixii khayr ah ilaahay addoommadayda hayga quusan inuu leeyahay annagu shirkaa khayr baan ka rajaynaynaa ummadda mujtamaca oo shacabka walaalaha oo wax samaysatay wixii ka qaldamay inay ku saxaan wixii ka maqan inay kusoo coshadaan wixii ay ayagu haystaan inay ku xafitaan inayna cidna dulmin ciddii dulantana dulmiga naga daaya ay dhahaan ay midnimadooda ay ku walaaloobaan shirkaa inay kasoo baxaan baan ilaah ka rajaynaynaa haddii lagu heshiin waayena waa in lagu noqdaayo aan mar kastaba laga daarin oo lagu laablaabtaa ereygaasaan ka qabaa horta shirka aniga waxaan u arkaa waqtiga loo qabtay iyo danta laga leeyahay inaysan islahayn shirka waxaan u maleynayaa maalmo kooban baa loo qabtay waxaan laga hadlaayana waxa weeye arrin aada u weyn oo dad maaragtay ka diday arrimo qaarkood sidii loo qancin lahaa ama iyagu ay dawladda u qancin lahaayeen si marka turxaan bixin badan bay u baahan tahay waa naqaanaa innaga shirarka marka wax leeda waqtiga ku yarmaya waqtigu waa ila yaryahay aniga laakiin waxaa laga yaabaa inay maaragtay waqtigooda iyagu sida u qorshaysteen oo horey looga soo shaqeeyay haddii ay tahay wax horey loo soo diyaariyey oo maaragtay oo horey looga soo wada hadlay maximo oo maaragtay waxaa laga yaabaa in go-aamadii keliya la isugu imaanayo
midda kaleeto oo aan rajeynayno waxa weeye shir intaasoo dada isugu timi oo ay ku heshiiyeen go-aamo kolleyba hadday tala ilaahay saartaan waa kii fula shirkaasi hase yeeshee haddiiba maaragtay uu shirka maarata qodobadiisii wax ka fuli waayaan meesha maamul baa jira maamulkaa laga rabaa inuu fulintiisii uu dabagalo haddii maamulka wax qaldo dee maamulkaa lagula xisaabtamaya oo maaragtay berri one man one vote bay noqonaysaa dee maamulka waxay noqonaysaa ama maamul wax fiican sameeyey oo wixii uu sameeyey maaragtay lagu abaalmariyo oo mar kaleeto aan soo doorano oo dadku maaragtay raalli ka noqdo iyo ama inuu noqdo maamul maaragtay wixiisii kasoo bixi waaye aniga waxaan rajeynayaa inuu maamulku wixii go-aama oo hadda la gaaray inuu maaragtay meel marinayo waana ugu duceynaynaa inuu ilaahay u sahlo su-aashayda ugu dambaysa waxa weeye maadaama barnaamijkeenu yahay barnaamijkii codka jaaliyadda qurba joogta maxaa kaga aadan ama maxay tahay wax arrinta kaga aadan shirkaas jaaliyadda qurba joogta reer puntland shirkaas iyo waxa aad kula daarmaysaan ergooyinka shirka puntland ee wadatashiga puntland ay ka dhici doonaan 1 Juun magaalada Gaalkacyo. bismillah waxaa kaga aadan jaaliyadda puntland waxaa kaga aadan keliya waxaa shirka inay taageeraan oo si buuxda loo taageero oo masalan niyada in loo taageero oo dadka ka qaybgalaya iyo cid walba oo masalan ay xiriir la leeyihiin ku abaabulaan in si buuxda looga qaybgalo dadka maamulaya shirka ama ergooyinka shirka kasoo qaybgalaya waxaan kula talinaynaa inay isu samraan inay isu dulqaataan inay si niyad leh uga shaqeeyaan in arrintaas ay ka miro dhaliyaan sidii ay u dhisteen ay maantana usoo laba dhistaan hadduu ilaahay amaasanta jaaliyadda puntland waxaan u rajaynaynaa inay ku guulaystaan shirka ay isugu soo noqdeen oo ay ku saxaxayaan wixii ayaa ka khaldamay dhan kastaba iyagoo ka fiirinaya taasaan ka rajaynaynaa wixii ka khaldamo oo ay qaban waayaanna waa ka rajo qabnaayo ka samri mayno wixii fiican oo ay qabtaanna waa taageeraynaa maadaama dadka diyaasbaraha ahaa oo puntland oo gobolkan ohio khaasaan columbus joogay aan nahay sidaasaan anagu ka qabnaa fikrad ahaan waxaana intaa ku daraynaa maadaama ereyadii ugu dambeeyay ay yihiin inaan u ducayno oo ilaahay aan u weydiino ilaahay midnimo inuu siiyo ilaahay inuu nabad siiyo ilaahay sharkooda dadka inuu ka xijaabo ilaahay sharka dadkana inuu ka xijaabo ilaahay maamulkooda iyo cadaaladoodana uu waafajiyo taasna waa midaan ugu darayo waxaan kaloo dib ka raacinayaa waxaan u diyaargaroobaynaa inaan inla qaybsanno dadka ina kusoo jabay oo qaxootiga gobolka ohaayo dadka jooga oo soomaalida oo muslimka oo walaalaha oo jaaliyadda soomaaliya ah waxaan ka codsanaynaa inaan soomaalida deeqsiga ahayd oo gacanta fiicnayd oo dadkooda qaadan jidha inay noo ogolaadaan arrintaasaan ku jiraaya aan u gurmano aan u wada gurmano waana isu imaanaynaa intaasaan uga baxaya arrinta shirka iyo codka jaaliyaddu ka qabto maaragtay waxay ka qabto ra'yi ka qabto waxa weeye shirkan annaga meel weyn buu nala yeelaa meel sare oo maaragtay aada iyo aada u sarreysa ayuu nala yeelaa dadka qabanqaabinayana dad maaragtay aan ogsoonahay weeye oo xilkasa oo howlkara waxa weeye nin aqoon-yahana oo injineer saalax ayaa guddoomiye ka ah xaaji saalax baa guddoomiye ka ah waxaan hubaa inuu maaragtay hawshiisa kasoo dhalaali doono uu maaragtay meel fiican marsiin doono shirkan maaragtay dadkii wax kala tabanayana iyagoo heshiisa oo nabad qab ku kala tegay inay ugu dhammaado baan rajeynaynaa wixii taageero ah oo maaragtay nalooga baahdana annaga diyaar baanu nahay sida cabdul sheegana annaga waa ognahay in maaragtay gobolladeeni in dad yimanka yimi oo dhibaataysan ay kusoo jabeen halkan hawl baanu ka wadnaa aan jecelnahay inay si fiican noogu hagaagto haddana noo socota maaragtay ummaddan maaragtay wanaagga jecelna waxaan rajeynaynaa inay
gacan ka geystaan oo ay maaragtay mar kaleetana aan si fiican uga hadalno waana ka baxay okay aad baad umahadsantihiin injineer cabdulqaadir maajo oo kulankii aad naga soo qayb gashay ama kulankii galabta iyo cabdi cismaan cabdow loo yaqaano iyo cabdul faarax dirshe aad ayaad umahadsantihiin barnaamijka oo ahaa barnaamijkii ugu horreeya galabta aad ku bilowdeen codka jaaliyadda puntland waad mahadsantihiin idinkuna daawadayaal halka aad ka daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ee puntland t v xarunta magaalada columbus ohio waa anigoo suxuf haaruna kulanti dambe oo xiisa leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu